2020 Puntland iyo duniduba waxay si gaar ah ugu xusuusan doonaan inuu ahaa sanadkii caqabadaha. sanad qorshihiisa gaarka ah watay khasabna ka dhigay in qorshe kasta oo horay u jiray dib loogu laabto. waxaan sidoo kale la ilaawi doonin in 2020ku uu ku suntanaa sanadkii dib u soo kabashada iyo adkaysiga. daqiiqadaha soo aadan waxaynu si kooban uga warbixin doonaa waxqabadyadii ugu muhiimsanaa ee xukuumadda Puntland ee ay hogaamiyaan madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Kraash muddadii lagu guda jiray sanadkii birta ahaa ee 2020. dowladda Puntland waxay dardargelisay qorshaha dib u dhiska iyo tayeynta talisyada kala duwan ee ciidamada Puntland si gaar ah ciidanka daraawiishta booliska iyo ciidamada asluubta. in ka badan 5,000 oo askari ayaa sanadkii tagay ee 2020 waxaa tababar loogu soo xiray xeryaha ciidamada ee Xorgoble, 54, Abqaale, Baran, Godad iyo akaadamiyada tababarka booliska Soomaaliyeed ee Carmo. qorshaha tayeynta ciidamada ayaa wax badan ka taray sare u qaadidda mooralka ciidamada iyo sugidda amniga, waxaana xusid mudan in heerka faldambiyeedyada ee guud ahaan deegaanada Puntland uu hoos u dhacay 46% marka la barbar dhigo sanadkii 2019 oo hoos u dhac u ahaa 38%. dhinaca kale waxay dowladdu xil weyn iska saartay xaquuqsiinta ciidamada gaar ahaan mushaharaadka, gunnooyinka iyo raashinada. waxaa lagu guulaystay in 44% la kordhiyo mushaharka iyo gunnooyinka askariga, taas oo la micno ah in mushaharka bayska ah ee askariga la gaarsiiyey $250 halka uu markii hore ka ahaa inta u dhaxaysa $70 iyo $110. guddiga dib u habaynta ciidamada ayaa ku guulaystay in hannaanka casriga ah ee xogdhigaalka noolaha biometrics la marsiiyo dhammaan ciidamada Puntland, waana nidaam suuro geliyey in xogta shakhsiga ah ee askari kasta oo Puntland ah ay ku jirto kayd danabaysan. tallaabadan ayaa muhiim u ah tirakoobka, tayeynta iyo xuquuqsiinta ciidamada. Puntland waxay la dagaalanka coronavirus hormuud u ahayd guud ahaan dalka Soomaaliya, iyadoo bandoo lagu soo rogay gobolada, la yareeyay isu socodka, lana hirgeliyey wacyigelin bulsho oo joogto ah. waxaa shaybaarka COVID-19 laga hirgeliyey magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Baran. tirada dadka laga baaray xanuunka COVID-19 sanadkii 2020 waa 10,236 qof. kiisaska la xaqiijiyey ayaa ah 1,136 kiis, halka tirada dadka caabuqa coronavirus u geeriyooday laga soo bilaabo bishii Abriil ilaa bishii Disembar ee 2020 ay tahay 18 qof. isla sanadkan dowladdu waxay wajahday ayax ku habsaday dhuldaaqsimeedka iyo beeraha gobolada Puntland, kaas oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada, isla markaana horseeday walwal la xiriira halis cunto. dowladda oo adeegsanaysa diyaarado, gawaarida wax buufisa iyo shaqaale xambaarsan haamaha wax lagu buufiyo ayaa ka howlgalay gobolada Puntland oo dhan si loo yareeyo halista ayaxa loona xakameeyo tarankiisa. masiibooyinka kale ee dowladdu ay si dhaqso ah uga jawaabtay sanadkii tagay waxaa ka mid ah duufaantii Gati oo gurmad laga fuliyey dhulxeebeedka Puntland ee ay saamaysay, iyo daadkii ku soo fatahay magaalada Qardho oo aad loo bogaadiyey habka ay dowladdu u maareysay. raadadka muuqda ee COVID-19 uu ku yeeshay wax soo saarka, kobaca dakhliga iyo ganacsiga waxaa ugu muhiimsan in 18% uu hoos u dhacay dakhliga gudaha ee u soo xiroon jiray wasaaradda maaliyadda ee Puntland, in hakad uu ku yimid badi deeqihii lacageed ee laga heli jiray caalamka, gaar ahaan kuwa la xiriira taakulaynta iyo gargaarka bini'aadamnimada.
iyada oo dunida oo dhan uu saameeyey covid-19 waxay dowladda Puntland ku guuleysatay bixinta mushaharaadka si joogto ah iyo kharashaadka kale ee dawliga ah taasina waa mid lagu gaaray siyaasadda dawliga ah ee ku dhisan tashiilka iyo hufnaanta maaliyadeed la dagaalanka musuqmaasuqa iyo lacagaha aan sharciga ahayn ee fadlanta waxaa laga gaaray guul weyn taas oo laga dhaxlay in kharashaad ka baaqday lagu dhiso xarumo muhiim ah sida wadooyin bangiga dawladda dhismayaal lagu daray madaxtooyada iyo guriga madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxqabadyada muhiimka ah ee dhanka maaliyadda waxaa dhinaca kale qayb ka ah casriyeynta habka wada shaqayn ee bangiga iyo wasaaradda maaliyadda oo laga dhigay mid dalabaysan iyo ballaarinta dhismaha bangiga si loo horumariyo adeegyada uu u qabto bulshada hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo dawladdu ay goor horeba bilowday wuxuu hadda marayaa heer aad u wanaagsan 2020 waxaa la diiwaan geliyey ururada siyaasadda ee rasmiga ah ee buuxiyey shuruudaha oo ay tiradoodu tahay 10 urur siyaasadeed wacyigelinta nidaamka dimuqraadiyadda ayaa ka bilaabatay magaalooyinka waaweyn ee Puntland xafiisyo ayaa laga hirgeliyey degmo kasta dadkuna waxay ku baraarugeen in ay ku kala biiraan ururada taas oo muujinaysa sida ay bulshadu diyaar ugu tahay in laga guuro nidaamkii hore ee wax lagu dooran jiray guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa dhammaan degmooyinka kulamo ku qabtay waxaana lagu howlan yahay diyaarinta saddexdii degmo ee ugu horeysay ee lagu qabanayo doorashada dawladaha hoose ee ku dhacda hannaanka hal qof iyo hal cod kuwaas oo kala ah Qardho Ayl iyo Ufayn intii dawladeenu barwaaqo noo horseeday waxay dowladda Puntland ku guuleysatay in la dhiso wadooyin laami ah oo wadarta dhererkoodu ay tahay 25.5 kilomitir lagana hirgeliyey deegaanada Kalabayr Yalho Eeldaahir Ceerigaabo Boosaaso Garowe Dhahar iyo Buurtinle sanadka 2020 waxaa la dhammaystiray dhismaha wadada Galgala oo horey loo dhisay 4 kilomitir 2019 haddana lagu daray 3 kilomitir oo kale waxaa la buuxiyey 6 buundo oo ku yaala jidka isku xira magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho kuwaas oo ay horey roobabku u gooyeen dowladda Puntland waxay dadaal badan gelisay sidii dalku uga gudbi lahaa marxaladda kala guurka ah iyadoo xukuumaddu ay sal iyo tiir u noqotay isu soo dhaweynta madaxda Soomaaliyeed waxaana kulamadii ugu horeeyay ee ka bilowmay gaalkacyo ay dhabaha u xaareen shirarkii Dhuusamareeb 1 Dhuusamareeb 2 iyo shirkii Muqdisho Puntland waxay kaalin muhiim ah ka qaadatay in dalka loo diyaariyo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo waqtigeeda ku dhacda waxaana dadaalkaas miradhalkiisu uu noqday heshiiskii arrimaha doorashada ee la saxiixay 17 Sebtembar 2020 Puntland waxay xilligan mar kale dadaal iyo waqti hor leh gelinaysaa xal u raadinta tabashooyinka la xiriira arrimaha doorashada sidaas darteed dowladda Puntland waxay ku baaqday in dalka loo turo oo la isugu yimaado shir kale oo lagu saxayo tabashooyinka iyo khaladaadka jira dowladuna hogaansani hagaan koobnabada iyo bilagu hodmaan gacan iyo xigtii Soomaali guri lagu hirto dadkabi dagay gundigi dalka Guriya sama bula sanad guuro wacan sanad guuro wacan